bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan qodobada heesa dhegeystayaal waxaa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya wafdi uu hogaaminayo oo gaaray dalka Eritrea qoyska gabadhii lagu kufsaday magaalada Gaalkacyo kadibna la dilay oo isaga guuray magaaladaas kadib markii ay waayeen cadaalad gudoomiyaha gobolka Bari oo isku day dil ka badbaaday Puntland oo amar ku bixisay hirgelinta fulinta xeerka kufsiga Yemen oo sheegtay inay qaati ka taagan tahay Soomaalida iyo Oromada xuutiyiinta ku biiraya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasin oo soo jeediyay inaan la mucaaradin dawladda Soomaaliya kontoni ruux oo ku geeriyootay daadad ku dhuftay dalka South Africa iyo Shiinaha iyo Itoobiya oo heshiis kala saxiixday taariikhdu waxay ku beegan tahay 24 bisha afraad sanadka 2019 Faysal Hanad ayaa soo saaray warka duhurnimo aynu ku bilaawnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi hogaaminaya ayaa maanta booqasho aan horey loo sii shaacin waxa ay ku tageen magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea madaxweynaha ayaa maalmahan ku sugnaa magaalada Qaahira ee dalka Masar halkaas uu kaga qayb galayay shir madaxeed looga hadlayay xaaladda dalka Suudaan hase yeeshee booqasho kadiisa ayuu ku tagay Eritrea waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi sidoo kale madaxweyne Farmaajo oo ay weheliyaan xubno uu ka mid yahay wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa kulan gaar ah ay la qaadan doonaan madaxweynaha dalkaas Asiyaas Afwerki markan qoyska gabadhii lagu kufsaday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa isaga guuray magaaladaas kadib markii ay waayeen cadaalad Faysal Hanad ayaa ka waramaya wararka aan ka helayno magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in qoyska ay ka soo jeedo Allaha u naxariistay gabadhii yareed ee magaaladaasi lagu dilay laguna kufsaday Caashe Ilyas Aadan ay isaga guureen magaalada ayna degeen ama ay u ambabaxeen deegaanka Goldogob oo ka tirsan isla gobolka Mudug dadka ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa saakay waxa ay tageen gurigii reerkaasi ay ka guureen waxaana ay sheegeen sababta ugu weyn ee reerka Caashe Ilyas Aadan ay uga guureen magaalada Gaalkacyo inay tahay kadib markii ay waayeen cadaalad aabaheedna waa Caashe aabaheeda ay uu dhowr mar tagay magaalada Garowe isla markaana uu waayay arintaasi si cadaalad ah kiiska in loo waafajiyo qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Gaalkacyo oo u waramay warbaahinta iyaga oo ku sugan gurigii ay deganeed Allaha u naxariistay Caashe Ilyas Aadan oo 12 jir ahayd oo magaaladaasi lagu dilay magaaladaasi lagu kufsaday kadibna la dilay ayaa warbaahinta uga waramay sababta keentay in qoyska ay gurigaasi ka guuraan dhibaatada ku dhacday dhawaan geeriyootay hooyadii iyo familkii iyo ehelkii halkan deganaa way ka guureen magaalada iyagoo tisanaya cadaalad darro iyo in laamaha ammaanka iyo maxkamadaha Puntland ay sharcigii iyo cadaaladii ka waayeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa u bayaaminaynaa in halkan dhibaatadii reerkan loo geystay aanay cidina ka hadal muddo 2 bilood iyo dheeri ah sidaa darteedna reerkii iyo hooyadii iyo familkii ay go'aansadeen inay Gaalkacyo iskaga guuraan si aanay dhibaato kale ayaga laftigooda uga soo gaarin bulshada Soomaaliyeed waxaan soo bandhigaynaa gurigii ay deganaayeen reerku gabadha yar ay ka baxday Allah u naxariistay waa kan waa cidlo waa guureen war beena maaha waa war sax ah oo jira oo caday oo dadku ay marxaati ka yihiin in dhibaatada halkan ka dhacday aan cidina wax ka qaban oo dawladda Puntland iyo laamaha ammaanka iyo maxkamaduhuba ay iska dawareejin iyo aanay war cad ka soo saarin Puntland guud ahaan dhibaatooyinka kufsiga ka dhaca dadka Soomaaliyeed ee gabdhaha ah loo geysto dawladdu maxkamada ma saadhow dadka garbaharay baa kamid ahayd 2 qof lagu togto gabar ku soo dishay deegaanada maamulka Puntland muddooyinkii dambe waxaa ku soo batay falalka kufsiga oo ay geysanayaan dad wax magarata ah kuwaas oo ay yar tahay in la waafajiyo sharciga islaamka iyo midka kale ee ay ku dhaqmaan maamulka Puntland waxaana tani ay muujinaysaa heerka cadaalad darrada ee ka jirta deegaanada maamulkaasi gudoomiyaha gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa maanta ka badbaaday isku day dil Rijaal Cabdi Maxamed ayaa faafahinaya warkan faafahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qarax maanta lala beegsaday gaari uu lahaa gudoomiyaha gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland Yuusuf Maxamed Wacaysa Dhado xilli uu marayay bartamaha magaalada Boosaaso gaariga oo ahaa nooca lagu magacaabo Toyota Hilux
ayaa qaraxu qabsaday xilli uu marayay agagaarka wadada hotelka Jubbaland ee magaalada Boosaaso waxaana ku dhaawacmay 4 askari oo ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado. sargaal ka tirsan laamaha amniga maamulka Puntland ayaa warbaahinta u sheegay in qarax uu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso oo wadada dhinaceeda la geliyay isla markaana lala damacsanaa gudoomiyaha gobolka Bari. gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado ayaa la sheegay in gaariga qaraxa lala beegsaday uu soo saarneen laakiin inta badan wadadaas ay tahay wado ay isticmaalaan baabuurta ka timaada madaxtooyada labaad ee magaalada Boosaaso ee Puntland iyo sidoo kale xarunta gobolka iyo xarunta degmada Boosaaso. askarta dhaawacantay ayaa loola cararay isbitaalka magaalada Boosaaso halkaas oo lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad. askarta ku dhaawacantay qaraxa ayaa sidoo kale la sheegay in qaarkood ay qabaan dhaawacyo culus halka laba ka mid ahna ay soo gaareen dhaawacyo fudud. qaraxan maanta gaariga gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado lala beegtay ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay howlgallo ballaaran oo ammaanka lagu xaqiijinayay ay ka socdeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Boosaaso kadib markii bilihii ugu dambeeyay amniga magaalada oo faraha ka baxay isla markaana ay ka socdeen dilal qorsheysan oo loo geysanayay mas'uuliyiinta Puntland ee ka howlgala gobolka Bari. Yemen ayaa waxa ay sheegtay inay qaati ka taagan tahay Soomaalida iyo Oromada Xuutiyiinta ku biiraya. Cali Xasan Cali ayaa faafahinaya warkan. dowladda Yemen ayaa sheegtay in dagaalka ka socda dalka Yemen ee kaalin mug leh ku leeyihiin qaxootiga Soomaalida iyo Oromada ee u tahriiba dalkaasi. taliyaha ciidanka dowladda Yemen General Khalid Al-Qamli ayaa sheegay in tahriibayaasha ka baxaya Soomaaliya ay saameyn ku yeesheen sii socoshada dagaalka u dhaxeeya Xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen. waxa uu sheegay in kooxda Xuutiyiinta ah ee tababar qasab ah siiso muhaajiriinta kuna biiriso dagaalka ka socda dalka Yemen ee iska soo horjeedaan dowladda Yemen iyo Xuutiyiinta. waxa uu generaalku sheegay in ciidamadiisa ay u baahan yihiin inay helaan taageero caalami ah oo la siiyo si badaha ay uga hortagaan tahriibayaasha una diidaan inay galaan Yemen. waxaa kale uu sheegay inay dowladda Yemen u baahan tahay agab military maadaama kooxda Xuutiyiinta ah ee taageero toos ah ka hesho dowladda Iiraan. bishii la soo dhaafay dowladda Yemen ayaa sheegtay in 30 qof oo Soomaali ah ay ku dhinteen dagaalka u dhaxeeya Xuutiyiinta iyo dowladda Yemen waxaana Soomaalida ay la safateen generaalka uu sheegay in Xuutiyiinta ka soo horjeedo dowladda Yemen. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa soo jeediyay inaan la mucaaradin dowladda federaalka ee Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. Cabdiqaadir Jakarta ayaa faafahinaya. madaxweynihii hore ee dowladii ku-meelgaarka ahayd Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ku sugan dalka Masar ayaa muujiyay sida uu xun yahay in Soomaaliya howle ay ku sii jirto dhibaatooyin kala duwan. waxa uuna ka codsay siyaasiyiinta Soomaaliya in danahooda gaarka ah ay ka hormariyaan danta guud ee dalka. madaxweynaha hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan dowladooda isaga oo mar ka hadlayay sida uu sheegay dilalka iyo weliba falalka amni darro ee ka dhaca magaalada Muqdisho. waxa uuna sheegay ama uu tilmaamay mid caqabad ku ah horumarka iyo amniga Soomaaliya. waxa uuna siyaasiyiinta dhawaan ku shiray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ugu baaqay inaysan dantooda kaliya aysan fiirsan hayeeshee ee la shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana aysan mucaaradin. sida aan uga xumahay dhibaatada dalka haysata iyo baabaa la baabi'inayo ummadda ayaan ka wada hadalnay. ilaahay in loo noqdo oo shacbiga Soomaaliyeed ilaahay u noqdo oo dadka baabi'inaya ay ilaahay u noqdaan oo ilaahay la baryo oo quraanka lagu baryo oo balaayada inuu naga dulqaado laga baryo ayaan shirkii u dambeeyay siyaasiyiin baa ka qayb gashay. waa la socdaa siyaasigu ma aha arrintiisu siyaasina ma aha haddii arrintiisu tahay kursi doon uun keliya. siyaasigu waa inuu noqdaa wanaagga dalka qof u dagaalamaya. marka waxaan leeyahay ha laysgarab taago hadba dawladdii timaadda iyo tan hadda jirtaba ha laysgarab taago ha la toosiyo haddii wax ka qaldan yihiin ha loo toosiyo ha lala taliyo gacan iyo garab ha la siiyo
dalku si uga gudbo xaaladda uu ku jirana ha laga shaqeeyo. hadalkan ayaa madaxweynihii hore ee dowladii kumeel gaarkeed cabdiqaasim salaad xasan waxa uu sheegay xilli kulan gaar ah magaalada qaahire ee caasimadda dalka masar uu kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo halkaas booqasho ku tegay, waana markii labaad ee wada kulmaan, iyadoona cabdiqaasim salaad xasan uu ka mid yahay xilligan siyaasiyiinta sida weyn u taageersan dowladda hadda jirta oo hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. ugu dambeynna dhegeystayaal 51 ruux ayaa ku geeriyootay daadad dabeelo watay oo ku dhuftay dalka South Africa. xaaladda dalka South Africa ayaa hadda waxa ay tahay mid aad u cakiran, iyadoona ciidamada booliiska iyo kooxaha loo sameeyay kuwo inay gurmad u sameeyaan dadka ay hadda ku hoolan yihiin inay gurmad u sameeyaan dadka daadadka ay saameeyeen. saraakiisha u hadashay ciidamada booliiska waxa ay sheegeen in tirada rasmiga ee hadda la ogyahay ay tahay 51 ruux oo ku geeriyootay daadad xoogan oo ku dhuftay dalka South Africa. weli waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaano iyo gurmad loo sameynayo dadka arrintaas saameynta ee ku yeelatay. guud ahaan dhageystayaal warkii duhurnimo ayaa intaas nooga eeg.